السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانبا dadka dhalinyarta ah, dadka shicibka ah, dadka caruurta ah, dumarka, dadka Boorama lagu laayay oo dhan iyo gobolkaas oo dhan ba lagu laayay. Marka hore Allah u naxariisto. Gacan ka xaq daran baad dishay, ka gar daran baad dishay. Xaq bayna ku dhinteen dadkaasi. Dhulkoodii bay joogeen, cid kuma ay duulin, gurigoodii baa intoo Hargeysa iyo Burciyo Berbere lagaga soo duulay. dadka si xaq daraa lagu laayay maantana aakhiro ay jiraan dadkaasi oo way dhinteen Allah u naxariisto waxa la yiraahdaa dadku gabay carabiga wuxuu leeyahay dadku waa laba nooc waxa weeyaan annaasu sinfaan mawta fi hayatihim wa aakharuna bi badni al-ardi ahya dadku waa laba nooc waa qayb in moogta iyagoo aakhiro jira nool iyagoo qaarna korka sare jira dhinsan marka dadka dhintay maanta aakhirada ay dhalinyartii way nool yihiin waayo maxay ku nool yihiin qalbigeena ay ku nool yihiin maskaxdeena ay ku nool yihiin taariikhda xusi doonta baal dahaba ayay kaga jiri doonaan mustaqbalka iyo reerahooduba in taariikhda awdal waxaan leeyahay go'aanka ay gaareen ummadooda u jihaynayeen nabadda oo gobolkoodu inuu Soomaali la sinaado dhaqaale ahaan xorriyad ahaan cadaalad ahaan dhan kastaba haddana lagu laayay moogtahay waxay noqonaysaa wax lagu dayday noqonaysaa mustaqbalka innagana waxay noo noqonaysaa dhiirigelin inaan dhulkeennii siduu u dhan yahayba loo yacado ilaa Gabiley ilaa Wajaale ilaa Ceel Sheekh inta u dhaxayso oo dhan ay maamul ka samaysano cidna kama baryayno waanan ka samaysanaynaa wuxuuna noqon doonaa maamulada adduunka ugu cajiibsan ee ugu wanaagsan ugu horumarsan taariikhda waxa la oran jiray awdal كلمة عربية العدل وي ودولكي عدالة ودولكي العدل ودولكي عدالة ودولكي وناجة ودولكي تعلينتا ودولكي ومضوه وصو تعلين دونيين مركا إن شاء الله ما أنت طلابة إنه قادني دبدن بوقن نقن ما إنه عدنا عدو كمنهن إثيوبيا عدو كمنهن جيبوتي عدو كمنهن هرقيسة عدو كمنهن ليس دولكي يجا دبدن بقفتن بوقمت بفريسان إنه وأنا قوان دتكو وذا جارين ملك السوي جوان وأنا ما سنتين